waa idin salaamay dhamaantiina magacaygu waa Ibrahim Aadam ku soo dhaw channelkayga oo subscribe isar waad mahadsantahay markii aad rabto in aad horumariso naftaada waxay u baahan tahay waqti iyo dulqaad fara badan run ahaantii qofka haduusan u dulqaadanin caqabadaha iyo dhibaatooyinka hor imaanaya noloshiisa waa uu fashilmaa waa in uusan qofku ka niyad jabin kana quusan nolosha nin dhalinyaro ah ayaa aad u niyad jabsana sanad kasta wuxuu isku dayi jiray inuu isbedel sameeyo haddana waxba iskama bedeli jirin noloshiisa dhibaatadii haysay waxay ahayd sideedii waxaana markasta ku kordhayay jahwareer iyo kadid maalin ayuu wuxuu u tagay nin khabiir ah wuxuu u sheegay dhammaan xalkiisii lana socodsiiyay wuxuuna u sheegay in uu doonayay in uu horumar sameeyo sanad kastana aysan noloshiisa wax isbedel ah aysan keenaynin khabiirkii ayaa wiilkii dhalinyarada ah weydiiyay su'aashan wuxuu ku yiri ma garanaysaa inta sano ay qaadato inuu ku koro geedka bambuuga la yiraahdo noqdana mid aad u dheer sanadka u horeeya markii la beero waa la waraabiyaa waana la bacrimiyaa waxba iskama bedelaan waxa la waraabiyaa haddana lana bacrimiyaa sanad kale oo buuxa sida ayaana lagu wadaa 3 sano oo kale waxba ma dhacaan oo geedka sidiisii waxba iskama bedelaan kadib sanadka shanaad wuxuu geedka isku shareeraa cirka 6 isbuuc gudaheedna geedkii wuxuu kor u koraa 90 feet oo u dhiganta 27 mitir haddaba khabiirkii waxa uu weydiiyay su'aashan ninkii dhalinyarada ahaa intee bay qaadatay inuu sida aadka u dheer u koro geedka wuxuu ninkii dhalinyarada ahaa ku jawaabay maadaama aysan wax isbedela uusan dhicin 5 sano ee la soo dhaafay geedku korriima sameeynin haddaba geedku wuxuu ku koray 6 isbuuc oo kaliya khabiirkii ayaa ku yiri taasi waa khalad waxay ku qaadatay 5 sano in uu sida u koro hadii qofkii beeray joojin lahaa inuu waraabiyo bacrimiyo ka shaqeeyo mar kamid ah 5 sano uu dhiman lahaa geedka waxa dhacayay 5 sano dhulka hoostiisa shabakad weyn oo xididdo ah ayaa ku sameysmaysay si ay u taageeraan korriimada geedka haddaba korriimadu waxay u baahan tahay dulqaad iyo mintid ama wax loo yaqaan kal aday dhibic kasta oo biyo ah farqi ayay u sameeynaysaa talaabo kasta aad qaado raad bay reebtaa horay kama arki kartid isbedelka laakiin korriimo ayaa dhacaysa haddaba weydii naftaada su'aalahan soo socda maxaa doonaysaa inaad samayso si aad riyadaada uga rumayso ma doonaysaa in aad samayso wax kasta ee kugu qaadato ma doonaysaa inaad ficil samayso mise fadhi iyo fikir baad ku jiraysaa ma doonaysaa inaad iska saarto cabsida iyo shakiga sidee buu yahay iimaankaaga iyo kalsoonida aad alle ku qabto inaan naxariistiisa laga quusan haddaba go'aanso waxa aad rabto alle tala saaro ficilna samee waqti xaadirkan la taagan yahay hadda dhaqaaq hadda hore u soco waxaan ku leeyahay ha ka quusan nolosha iyo naxariista alle halkan ayaan muuqaalkan ku soo gabagabayn doonaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace